anigu wax dambiya ma lihi waxa aan kaliya magaalada ka sifayn jiray dumarka isla wareegtada ah dilkii macallimadda inantayda yar waxaan adeegsan jiray gaadhiga booliska Michael Bobkov waxa uu ahaa gacan ku dhiigla caan ah oo u dhashay waddanka Ruushka waxa uuna dilay 82 dumar ah isagoo aan weligii la qaban lagana shakiyin waxa uuna dilka waday muddo 20 sano ku dhawaada waxa uu fulin jiray dilal isdaba joog ah oo ahaa kuwii ugu xumaaya abid soo mara taariikhda Ruushka waxaana loo aqoonsaday dilaagii ugu khatarsanaa ee abid Ruushka soo mara waxa ninkan muddo aan si fogeyn lagu xukumay dil toogasho ah markii la weydiiyay sababta uu dumarka u leyn jiray waxa uu sheegay inuu magaalada Ingaaski rabay inuu ka sifeeyo dumarka sinada badan ee anshaxa xun dumarkaas ayuuna aad u nacbaa ninkani dacwadda lagu soo oogay ayaa loogu haystay dilka 82 dumar ah waliba uu kufsaday intooda badan ka hor inta aanu dilin kadibna uu ku jarjaray midiyo iyo waliba waxyaabo kale ilaa uu nafta dhaafiyay waxaana la yaab ahayd inuu intaba qirtay oo waliba afkiisa uu si buuxda uga sheegay ninkan ayaa dilalka bilaabay 1992kii waxa uuna waday ilaa 2010kii isla waqtigii uu burburay midowgii Soofiyeedka dumarka uu laayay waxa ay daadoodu u dhaxaysay 17 ilaa 38 jir waxa uu ahaa manaxaan ugaarsada gabadh kasta oo aan shaxdarro ka ogaado cidna aanu jixin ninkani waxa uu afbuuxa ku qortay dambigiisa waxa uuna yiri isagoo maxkamad hor taagan waxa aan ahaan jiray aabbo wanaagsan oo ka shaqeeya qaybta booliska waxaan ahaa askari shaqadiisa guta oo waliba sida ugu daacadsan u guta balse noloshaydaas marka laga yimaado waxa aan lahaa nolol kale taas oo aan ka qarin jiray cid walba kana taxadiri jiray inay cid ogaato xataa xaaskayga iyo inantayda yari waxba kama aysan ogeyn arrintayda waxayna ii tixgelin jireen inaan ahay aabbaha dunida ugu wanaagsan waana sida waaqica ahayd waana run ahaantii waan ogaa inaan arrintan ciqaab kala kulmi doono maalinkay doontaba ha ahaatee balse xukunka naftayda ayaan raaci jiray dabcan sida hadalkiisa ka muuqata ninkani waxa uu ogaa inuu arrintan ciqaab kala kulmi doono haddana sidoo kale wuu iskula saxnaa waxa uu samaynayo bal haddaba daawadayaal aynu eegno sidee ayuu ninkani ku fulin jiray dambiyadiisa marka hore ninkani waxa uu soo calaamadsan jiray gabadha uu rabo inuu ka takhaluso ee uu dhaqankeeda iyo ficilkeeda dhiibsaday kadibna waxa uu soo kaxaysan jiray gaadhiga booliska isagoo uu eegan jiray xilaa ay qoftaasi kaligeed tahay markaas ayuu soo afduuban jiray oo uu gaadhiga ku soo ridan jiray isagoo la tegi jiray meel cidlo ah halkaas ayuuna kufsi iyo dil arxandarraha isu raacin jiray arrinta u sahashay inaan la qabanin ninkan ayaa ahayd inuu ahaa nin boolisa welibana shaqadiisa si daacadnimo la u gudan jiray waxa kale oo aan marnaba niyadda la gelinin in falalka noocan oo kale nin boolis ah geysanayo mar wax laga weydiiyay hubka uu adeegsan jiray ee uu dadkan ku laayay waxa uu sheegay weligii qofku ma dilin ciijin ama rasaas wixii kale ee aan labada hab ahaynba waan adeegsaday mana dhib badno oo qofka marka aan rabo inaan dilo cidlo ayaan la tegi jiray wax kasta oo aan helo ayaan ku diri jiray ha ahaato faash midi hadday doonto usha booliska ha ahaato balse marka aan dilka fuliyo dhammaan qalabka aan wax ku dilay waan tuuri jiray ayuu yiri si aan raadraac la igu helin mid ka mid ah falalka ugu darnaa ee uu ku kacay ayaa ahayd inuu dilay macallimadii wax u dhigi jirtay inantiisa yar ee Katia waxay ahayd macallimadda inantiisa yar bartay muusikada iyo maadada fanka balse waxa uu ku daray liiska dumarka uu rabay inuu dunida ka sifeeyo waxaana meydka macallimadda iyo meydka gabadha yar laga helay meel kayna oo uu ku dhex dilay mar uu arrintan ka hadlayay ayuuna yiri waxa uu ahaa dil dhib badan markii aan u dhameeyay kadib ayaan damcay inaan meesha iskaga tago balse waxa iga dhacay calaamadii booliska dabcan waxa uu sheegayaa xadigaha yaryar ee booliska garabka loo suro waxa uuna yiri isagoo hadalkiisa sii wata markii aan damcay inaan calaamadda dhulka ka qaato ayaan arkay mid ka mid ah dumarka oo neefsanaysa run ahaantii haddaan ka tegi lahaa khatar ayaan geli lahaa sidaa darteed majarafad meesha taallay ayaan qaatay kadibna waan u dhameeyay dilkaas ayuuna ahaa kii igu dhibta badnaa oo aan ku sigtay inaan fashilmo si kastaba ha ahaatee ninkan arrintiisu ugu dambeyntii way fashilantay inkastoo qisada halkaan ka soo turjumay aysan ku caddayn sida loo fashiliyay waxaa kaloo arrintan rumaysan waayay xaaskiisa iyo gabadhiisii yarayd iyadoo inantiisa yar laga dhaadhicin kari waayay in aabaheedii ay jecleed falkan ku kacay macallimadeediina uu isugu daray dil iyo weliba kufsi
waqtiga la daldalay ninkan oo ahayd 2015 gabadhiisu waxay ahayd macallimad muusiga dhigta waxayna faraha kula jirtay arrintii uu macallimadeeda ku dilay. qisadan waxaan ka soo turjumay website-ka la dhaho Al Arabiya. qofkii faahfaahin inta ka baxsan rabaana halkaas ayuu ugu laaban karaa. balse daawada intaadan ka bixin muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka oo aad nagu soo biirto naguna dhiirigelisa samaynta muuqaalo badan. sidaas iyo amaano Allah.